ragii Hargeysa iyo Burco dadka ka yimaaday ee duulabaadka sidii la iska celin lahaa ayaa la rabaa dhalinyarada maanta dhulkoogii iyo masuulkoogii iyo waxa weeye qadiyadoodii lagu dulgadanayo waxa weeye soo raamusan oo jooga aynu joogno ma jiro reer taliya reerkan inala jaarka Hargeysa iyo Burco degan inamada ay soo dirsadeen degdeg gobolka uga baxay bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah marka horeysa waxaan salaamayaa shacabkayga taageerayaashayda ayaan salaamayaa salaamta salaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh talabaad qodobka ugu muhiimsan waxaan doonaynaa inaan qabanno dhowaan shirweyne kala guursay dhowaan oo degdeg ah jigjigada intaana ka soo bixin ayaan qaban doonaa insha allahu dhalinyartu maragga iyo dumarka cid walba niyada ha u hayso niyada ha ku haysto inay shirkaasi soo socdo oo maaragtay wixii dhiba ee jirtaba shirka aan kaga qaban doono wax kaga qaban doono haddii alla yidhaah qodobka labaad waxaan idinku buurinayaa midnimo good haddadeed in la helo in la baraarugo oo maaragtay danteennii waa la isku haystaa dhulkeennii baa la isku haystaa taasi waa qodobka labaad qodobka saddexaad sideen ugu noolaanaa dhulkeenni weeye su-aasha maanta taagan dhulkeennii sidaan ugu noolan lahayn farsamaa looga baahan yahay xoog baa lagu baahan yahay garashaan loo baahan yahay waa laynagu haystaaba meesha waxaa lagu haystaa dhaqankii baa la haystaa dhalinyartii baa la haystaa waxaa la haystaa dhulkii baa la haystaa dad baa ku soo duulay aan la garanaynin waa ay noogu yimaadeen halka ka yimaadeen qarnigii 20aad bay noo yimaadeen Hargeysa Burco Hargeysa iyo Burco dadka ka yimaaday ee duulabaadka sidii la iska celin lahaa ayaa la rabaa oo lumaan lagtay gadabursi farsamadooda inay keenaan ayaa la rabaa dhulkiinii baa lagu haystaa bixin qodobka saddexaad waxa weeye waa maxay roolka dhalinyarada gadabursi ama samaro ama awdal weyn su-aashaas ee dhalinyarta waxa la rabaa inay baraarugaan diyaar noqdaan xoogga ummaduna waxa weeye waa dhalinyarta weeyaan odayadu way daaleen xilligoodii way dhammaysteen waayeel bay noqdeen raggi wax iska celin jiray ee dhulka celin jiray ee difaaci jiray dhalinyarta ahay cid aad ku hadlaysiina ma jirto waad fiicantihiina waan idin jecelahay aad iyo aad baan ii taageertiin insha allahu gaar ahaan markay noqoto lafaciisa iyo dadka jooga dhanka iyo jooga taageerayashadii ugu ficila ay xambaari jiray waan u soo socdaa insha allah allah idin barakeeyo ducana waan ugu daraya qodobka kale waa maanta waa maxay xaalka dhulkeennii waa maxay xaalka odayashu halka ay ku sugan yihiin waa maxay hadday tahay sugaaskii haddaa lagu haysto meeshiisii baa lagu haystaa dhulkii baa lagu haystaa waxaa lagu haystaa caqiladii baa la haystaa waxaa la rabaa marka talo in la isku noqdo ayaa la doonayaa marka waan ka tashan doonaa fadhi baan ku tashan doonaa haddii alla yidhaahdo maanta xaaladda dhulkeenu waa khariban tahay dullabaad baa inagu socdaa fool xun aan inaga xoog roorayna weliba inagaa ka xoog badan laandheeraha soomaalidu la sheego waxa weeyaan inagaa ka laandheeraysan oo ka badan si kastaa isku yimaado
marka taasina waa qodobka saddex. qodobka kale waxa weeye reer awdal iyo qiise dadka la isku yidhaayo walaalaha ah ya duulimaad baa lagu yahay midnimaa lagaga rabaa reer awdal ah qiise iyo gadabuursi anaana wadu ah anaa suldaan ah tu guud ah ya kuma haysto ugaasyada iyo roolkooda kuma haysto adigaa maaragtay dadteeda dadka reer awdalna taasaan odhan lahaa fariin adag waxaan u sheegi lahaa waxaan u dari lahaa ragga burco iyo hargeysa burco iyo hargeysa hana dayso bilis madaaya ya haddii kale tooxun bay ka tegi doontaa waana la isasii barana waa la shaqaanbee oladaana waxaan odhan lahaa reer burco iyo hargeysa bilis ya nadaaya dhulkiinu ha ina deeqo dhul baad leedihiin badan baad leedihiin ha ina deeqo waa anigoo xogaa cabdi hadliyaa dee waxaan leeyahay waxa weeye dhallinyarada maanta dhulkoogii iyo mas-uulkoogii iyo waxa weeye qadiidahoogii lagu dulgadanaya waxa weeye iska wada aamusan oo hoo jooga waxaasoo dhan way soo afjarmayaan insha allah waxa weeye annagu waanu soo soconnaa dhowaan waanu waxa weeye dhulkaygina waxa la yidhi maamaan soomaaliyeed waxay tiraahdaa dacwo weli baaxa waa ka dabaciyaa daqiiqaadka eegmadana daymadu kacay waxa weeye waa iswaan innagu waxa weeye annagu waanu sahaynaa waanu soo soconnaa insha allah waan la isbaranayaa si fiican baan isku baranayaa dee iskudaankaana aan soo gebagabeeyey waxa weeye mataqaanaa jigjiga lafaciise ilaa iyo halkaa mataqaanaa waxa weeye etoobiya waan soo wada maraynaa waanu soo soconnaa dhallinyarada reer fariin adag baan u tahayaa war ilmaadeerayaal waqtiga aynu joogno ma jiro reer u taliya reerkan inaala jaarka hargeysa iyo burcad degan inamada ay soo dirsadeen degda gobolka uga baxaan aqbali mayno in maalin walba la yidhaahdo dadkaygii baa dad la gato laga dhiga dhaqankayaga kuma jirin qof la gato ma lihin dad la iibsan karo ma lihin dad la handadi karo sida ugu dhaqsidaha badan leh waa inay dhallinyaradu isku muujisaa waxaa soo kacay libaaxeedii waanu garab taagannahay libaaxyaa garab taagan waa markii la isbaran lahaa reer laascaanood wuxuugii bannaanka dhigtay ummadda soomaaliyeed wayna daawanaysaa magac u ahaan mayno reer inala mida reerna reer uma dowladeeyo ninka burcad degan ninka hargeysa degan halkiisaasaan ku ixtiraamayna aqbali mayno inuu awdal ka taliyo ina yaroo ka yimiday degaan kale sida ugu dhaqsaha badan la isugu imanayaa ma jiro qof reer awdaloo beeci ma jiro qof reer awdaloo la gadan kara hadallada ugaaska iyo baryaha midiyaha la marinayo ee loo haysta ugaaska inuu gaari gooyo war ugaaska gaarima gooyo ingiriis baa aabbihii la hadli kari waaye etoobiyaan baa aabbihii wax ka qaadi kari waaye waa nin adag talaanan iskugu imanaynaa isku rayi baan nahay isku hadaf baan nahay wuxuu qabaanu qabnaa